بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة بونتلاند مدن سعيد عبد الله الدني. مدحوينها دولة كوفر قلبيد مدن عبد العزيز حسن محمد. مدحوينها دولة جبلان مدن أحمد محمد إسلام. مدحوينها دولة هيرشابيلي مدن محمد عبد واره. madaxweyne ku-xigeenka dawladda galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada galmudug xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golayaasha wasiirada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka ah xubnaha ka fadhiya xafiiska qaramada midoobay xubnaha wafuudda la socota madaxda dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. mudanayaal iyo barwooyin sharaf weyn ayay noo tahay aniga dawladda iyo shacabka galmudug in aad nagu sharafteen martigelinta shirweynaha ka geli doona kaalin muhiim ah taariikhda dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya. shirkani wuxuu imaanayaa iyada oo muddo dheer ay ka soo wareegtay kulan ay isugu yimaadaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya. walaalayaal waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad u aqbasheen gogasha ay fidisay dawladda galmudug. waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa safarka dheer ee aad u soo gasheen idinka iyo wafuudda sharafta leh ee aad hoggaaminaysaan ka soo qaybgalka shirkan ama gogashan. inkasta oo aad ka soo fogaateen xafiisyadiinnii iyo howlmaalmeedkiinnii haddana waxaad u timaadeen gogasha galmudug in ay tahay qayb ka mid ah gudashada waajibaadka wadareed ee naga saaran dhismaha nabadda horumarinta dib u heshiisiinta xoojinta midnimada iyo iskaashiga qarannimada dawladnimada Soomaaliyeed. walaalayaal bishaan oo aan galnay qaybta dambe ee sanadka 2020 ma jiro ajende qaran oo ka mudnaan badan in is-afgarad laga gaaro doorasho heer federaal taas oo wakhti kooban ay ka harsan tahay muddo xaleedka hay-adaha dastuuriga ah. mudanayaal iyo marwooyin ujeeddada gogosha galmudug waxay ku salaysan tahay in madaxweynayaasha dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah. taas macnaheedu ma ahan in ay taladu innaga inagu kooban tahay. sidaa darteed mudanayaal iyo marwooyin galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhex mara dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran ee howlaha culus ee dalka hor yaalla sida dhammaystirka dastuurka dimuqraadiyeynta la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan qaran dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha. si loo xoojiyo himilooyinka lama huraanka u ah dhammaanteen in lala imaado tanasul is-oggolaasho talo wadaag sababtoo ah ma jiro dhinac keligii sida ugu habboon u meel marin kara waajibaadka iyo howlaha culus ee dalka hor yaalla. mudanayaal iyo marwooyin dalkeennu wuxuu soo maray geeddi socod dib u heshiisiineed oo dheer. markii ugu horraysay wuxuu midho dhalay sannadkii 2000 kadib markii magaalada Carte ee Jamhuuriyadda Jabuuti walaalaha nahay lagu unkay dawlad Soomaaliyeed. xilliyo iyo xaalado kala duwan ayaa la soo maray
laakiin waxay dhammaantood ka midaysnaayeen horumar laga sameeyey dhinaca dhismaha dawladnimada iyo dib u heshiisiinta federaaliyiinta dalka. muddooyinkan dambe waxaa dhaqan siyaasadeed oo ay Soomaalidu ku faanto ay noqotay in doorasho la qabto 4 sanaba mar. doorashada joogtada ahi waxay qayb ka noqotay oggolaanshaha iyo xasilloonida siyaasadeed ee dalka. mudanayaal iyo marwooyin, xilliga aan ku jirno awgiis shacabka Soomaaliyeed waxay maanta indhaha ku hayaan gogosha galmudug taalla gaar ahaan caasimadda. waxaan rajaynayaa in shirkan ay ka soo bixi doonto aragti midaysan oo marxaladda kala guurka lagu maareeyo. walaalaha Soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa in ujeeddada gogoshani ay tahay in ay xal ka ahaato mar kale xal ka ahaato dhammaan howlaha taagan ee u baahan maaraynta. mar kale waxaan idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka shirkan gogoshan muhiimka ah oo runtii aanu dhihi karno waa gogol taariikhi ah. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dawladda galmudug, siyaasiyiinta, hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshaweynta galmudug, gaar ahaan dadweynaha caasimadda galmudug oo si buuxda isu garab taagay gogoshan wadatashiga mustaqbalka Soomaaliya. mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan marti sharafta waa u mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magacayga, magaca dawladda galmudug iyo magaca shacabweynaha galmudug. waxaan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin, soo dhowaada, ku soo dhowaada deegaankiinni iyo dalkiinnii, ku soo dhowaada taladiinnii oo maantay meel habboon joogta lagana gaari karo si wada jir ah, is-afgarad iyo heshiis loo aayo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor waad ku mahadsantahay inaad shirka noo furtay. dad mikrofoonka iska dawisana madaxweynayaasha, madaxweyne ku-xigeenka galmudug, guddoomiyaha baarlamaanka galmudug, guddoomiye ku-xigeenkiisa oo aanan markii hore xusin oo goobjoog ah, iyo dhammaan marti sharafta waxaan ka codsanayaa maadaama shirka noo furmay inaanu istaagno astaanta qaranka oo calanka Soomaaliya ah, kadibna ay khudbaduhu isugu sii keen xigaan oo ay noo socdaan. waad mahadsantihiin. khudbadda noo xigta waa madaxweynaha dowladda Puntland, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, oo aan ku soo dhaweynayo mikrofoonka.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها دولة قلمدق مدن أحمد عبدي كاري قورقور، مدحوينها دولة كونفور قلبيد مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين، مدحوينها دولة جبلان أحمد محمد إسلام، مدحوينها دولة هيرشابيلة مدن محمد عبدي واري، قدوميها بارلمانكا قلمدق iyo ku-xigeenadiisa madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa wufuudda golayaasha kala duwan ee labada gole ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee dowladda federaalka ah wufuudda la socotay madaxweynayaasha ee heerarka kala duwan leh bulshada rayidka ah dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo magaalada dhuusamareeb madaxdeeda dhammaantiin waa salaamantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan marka ugu horraysa madaxweynaha dowladda galmudug xukuumaddiisa iyo golayaashiisa shacabka reer galmudug dhammaantood uga mahadcelinayaa sida sharafta leh ay noogu soo dhoweeyeen magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb oo runtii aan uga mahadcelinayna dadaalka wakhtiga kooban ee go'aanka in shirkan uu qabsoomo lagu qaatay iyo sida habsamida leh ee howlihii baaxadda lahaa ee horyaallay ay u maareeyeen. waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo xukuumaddaada iyo golayaashaada iyo shacabka reer galmudugba aad baad u mahadsantihiin. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo wufuuddii la socday in ay ajiibaan kulankan iyo gogashan sidoo kaleetana wakhtigii loogu talagalay shirka ay ku yimaadaan iyaga oo howlo badan ay hor yaalleen kana hormariyey oo hortabinta ka siiyey hawshan maanta galmudug loo fadhiyo oo ku soo beegantay xilli ku habboon. xaqiiqda waxaa ka warramay madaxweynaha macnaha shirkan uu ku fadhiyo ulajeeddadiisa ugu weynna uu yahay in wadatashi ay sameeyaan dowladaha xubnaha ka ah sida dastuurka uu farayo iyaga oo ka tashanaya sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen waajibka guud ee ka saaran horumarka iyo dibudhiska dalka soomaaliya. ninna kama qarsoona marxaladihii la soo maray qof walbana wuu la socdaa marxaladda maanta aan marayno. waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadnaqaynaa meesha dadka soomaaliyeed maanta ay gaareen. waxaa daliil u ah dhismihii iyo wakhtigii la soo baxshay iyo horumarkii dowladnimo ee dadka soomaaliyeed ee muddada uu maalgelinayay. waxaa daliil ugu filan shirka maanta aan fadhinno maamuuska iyo sharafta iyo sida loo hagay ayaa waxay ku filan tahay dadka soomaaliyeed inay diyaar u yihiin bisayl fiican ay u qabaan inay dalkooda maamushaan kuna filan yihiin. magaaladan oon ognahay in magaalo muddo badan khilaafaad siyaasadeedu ka jiray kala aragti duwanaan ay ka jirtay ay tahay magaalooyinka marka la fiiriyo magaalooyinka soomaaliya xagga dowlad dhiska ugu dambaysay haddana dhismuhu daaraha iyo ma aha guryaha dhismuhu waa dad la dhisay baa jooga oo awood u yeeshay in ay maareeyaan howlaha guud ee qaranka ummaddan dhisantay. waxaan ugu mahadcelinayaa hogaaminta madaxweyne axmed iyo siyaasiyiinta la garab istaagay inay marxaladdan cusub ay gacmaha isqabsadaan. waxaan si gaara galmudug ugu mahadcelinayaa dadaalka ay u galeen inay tooda xalliyaan dariskooda oo puntland ay wada hadal iyo wada xaajood la galaan gogashii qarankana ay dhigaan. intaasba waxay muujinaysaa in ay yihiin dad u taagan inay qayb ka qaataan horumarka dalka ee maanta la tiigsanayo.
furitaankii shirka madaxweynaha ku filnaa annaga waxaan cabiraynaa keliya sidaan raalliga uga nahay in aan shirkan ka soo qayb galno oo taladiisa aan wax ka lahayn oo maanta aan u fadhinno oo aan ka rajaynayno inay ka soo baxaan wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku diirsadaan oo walwalka ka hayay mustaqbalka dhinaca doorashada ee laga gudbo dabcan walwalkaas mararka qaarkood wuxuu ka imaanayaa xaaladaha la jecel yahay iyo duruufta lagu jiro dabcan dalku muddo badan wuxuu ku taamayay in uu ka baxo nidaamka doorasho ee muddada 20 sano aan ku soo dhaqmaynay oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo qof iyo cod ah waana waxa qof kasta oo Soomaaliya uu tiigsanayo laakiin waxa la rabaa markii tiigsigaas waqtigu soo dhawaado ay u muuqato in la xaqiijin waayo talaa la rabaa in la isugu noqdo oo hadda wixii markaa laga badin waayo la qaato si meeshii la jooga aan dib looga dhicin nidaamka doorashooyinka kale ee qof iyo codka ahayn naftarkeedu waa tan maanta halkaana soo gaarsiisay oo 20 sano aan ku soo dhaqmaynay wixii wanaagsanaa ama adduunku uu yaqaan ma aha laakiin waa waxna la eg oo marxaladaha aan uga gudbayno oo aan hadda aan ku jirno waxaan u baahannahay marka dadka oo Soomaaliyeed oo dhan madax iyo shacabba inay mar walba ay qiraan duruufta la marayo oo xalka munaasabka ku ah ay isla rogrogaan oo meesha dadka u badan yahay gacmaha la isku qabsado dabcan waxa laga shaqeynaa waa siyaasad kala aragti duwanaan baa imaanaysa waxa imaanaya masaalix kale oo arrimo siyaasi ah ka dhalan kara laakiin waxaas oo dhan waxaa ka weyn maslaxadda dalka midnimadiisa horumarkiisa nidaamka federaaliga aan qabsannay waa nidaamka maanta kalifay inaan dhuusamareeb ku shirno dowladaha kobcaya ee xubnaha ka ah dowladda federaalku waa masaalix iyo adeeg u soo kordhay bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto magaaladan waxaan ku nool oo maanta wada jooga dadkii Soomaaliyeed qof kama maqna magaalo kasta oo Soomaaliyeedna sidaas ay u diyaar garoobaysaa inay Soomaalidu oo dhan ay ku wada noolaadaan ka ganacsadaan martigeliso gacmaha la isku qabsado nidaamka federaaliga ma aha wax dadka kala geynaya nidaamka federaaligu ma aha wax dadka aan horumarkiisa wada jir loo qabsanayn waa shaqadii oo la kala qaybsaday hadday taasi jir lahayn maanta markaan Axmed Qoorqoor halka ugu nimaano hadda gacantaan ku dhigi lahayn oo shaqadaan la qabsan lahayn waxaan quruxda badan ma soo baxeen waayo wixii la isla wada maamulo foolxumaa ka soo baxda marka waxaan rajaynayaa kala qaybsanaanta dowladaha ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waa wax iskabaya waa shaqooyin ay la isu qabanayo ugu dambeynna loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed oo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo aayaheeda wax loogu qabanayo waxaan ku faraxsanahay kaftankaba aan ku daree meeshii federaalka lugta laga heen jiraa maanta fadhinaa marka waa horumar weyn oo la gaaray taasi waxay daliil u tahay dalka Soomaaliya 30 sano inuu gadaal ka tuuray annaguna waa aqbalnay waana ku taageeraynaa waxaan rajaynayaa nidaamkaas quruxdiisa waa la arkay waxaa qurux ugu filnaa madaxweynuhu marka uu tuurka ku maray ama uu kormeerka ku maray deegaanada Galmudug wixii uu kala kulmay oo quruxda badnaa oo annaguna aan ka dheehanayn idaacadaha iyo telefishinada wanaag badan dad u heelan dadkooda ogol dad israba dadka haddaan loo tegin waa la isaga warramayaa waxa kaliya Soomaali daawo ah waa inay isu timaadaan wada hadasha aan wada hadalno waa aan heshiino waxaa daliil ugu filan Soomaalidu meelaha qaybtooda inay weli ka dhiman tahay kulankeenii ugu dambeeyay ee aan gaalkacyo ku yeelanay anaga iyo dawladda Galmudug isbuuc ka hor howlo badan oo Galmudug laga waday waxa lagu guuleystay dariiqyo 30 sano xirnaa in la furo dadka Soomaaliyeed haddii runtii isku sheegin wax ka xun oo been isku sheegayaan mararka qaybtood waxa moodaa waayadan dambe in dadka la marin habaabinayo waxaan aaminsanahay Soomaali waa kala shakisantaa wili waa xaqiiqo jirta waxa kaliya ku xalin kartana waa inay aqbasho inay wada hadlaan oo isxaliyaan oo hore u socdaan
oosan been isu sheegin siyaasaddan la iska daba wareegayo waxaan ku talin lahaa anigu in laga baxo dalkeenna waa ku filannahay dadkiisu dalkeenna waa ka badan yahay degaanadeennu nolosha hadda ay ku nool yihiin waxay nagu noqonaysaa dembi waad og tihiin dalkii meelo yaryar baa ka iftiimaya dalkii dibadhac weyn baa ka jira dadkiisii adeegyadii aasaasigaa ma haystaan noloshii aasaasiga ahayd ay ahayd tacliinta iyo caafimaadka iyo horumarka intii la iska daayo xataa rucbi bay ku nool yihiin iyo baqdin nabadgelyo ma haystaan mas-uuliyad weyn baana saaran waxyaabaha mararka qaybtood aan fiirinayno aan dhib iska dhiganno dalkan qof kastoo madax u noqdo hadduu qaanuunka iyo nidaamka ku shaqaynayo dee hawsha waaba lala qabanaya waa sahlanta haddii madaxda inta hadda uu madaxweyne qoorqoor gartay markii uu talada ku guulaystay war tartankii waa dhammaaday ee kaalay aan wax wada qabsanno intaa hadday dhacdo oo maalintii tartanka uu dhammaado kii waagii muxuu ii fiiriyey iyo xaggee iga jiray iyo halkaan la galo haddee hadalka fiicanoo ayaantan waqooyi ka soo baxo ila meeraysadaa lagu dhammaysanaya wakhtiga mana la kala badinayo runtii ninbu dabada haysanaya marka waxaan qabaa inaan hore eegno een dib aanan eegin waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa shirkani inuu noqdo shir taariikhi ah waxaan rajaynaynaa in uu najixiddiisu uusan ahayn shirkan iyo waxa ka soo baxee najixintiisu ay tahay dadka soomaaliyeed iyo siday u qaataan waxaan aad u rajaynayaa dhammaan madaxda dowladda federaalka oo halka farriin uga dilayaa shirkan waa shaqo madaxda dowladda federaalka loo qabanayo waa dowladihiinnii aad madaxda u ahaydeen waa dalkiinnii dadkii mas-uulkeenniiga ahaa waxa ay ka hadlayaan waxa weeye waa howlo ay rabaan inay inii fududeeyaan sidii dalka uu horey ugu socon lahaa waxaan ku rajo weynahay in dalku doorasho wakhtigeeda ka dhacdo si nabada ku dhacdo natiijo lagu wada faraxsan yahay oo lagu qanacsan yahay ay ka soo baxdo dalkuna uu marxalad labaad ugu gudbo midda quruxda badan ee qof iyo codka ah waynu gaari doonnaa haddii ilaahay idan ka dhigo laakiin maanta ma bilna mar haddaysan bilnayn wixii aan ka badin weyna aan ka tashanno aana aqbalno wixii aa haysatid baa la iimaansadaayo wixii aan kari karno aan iimaansanno hadba inta aan kari karno waxaan ku rajo weynahay ambishanka badan oo runtii sida caalamku nala jecel yahay waa tixgelinaynaa laakiin tabarteenna aan guuraynaa haddii ilaah idan ka dhigo waxaan beesha caalamka aan halka runtii uga dirayaa baaq oon ugu mahad celinayo muddadii dheerayd siday dadka soomaaliyeed u garab taagnaayeen siday qayb ugu ahaayeen siday dadka soomaaliyeed cagooda ugu istaagi lahaayeen taageerada joogtada ah waan uga mahad celinaynaa sidoo kaleetana waxaan aad u rajaynaynaa annagaa ka xog ogaalsana wixii aan ka badin weyno inay nagula qancaan oo inagu garab siiyaan waxaa mararka qaarkood siyaasadda soomaaliya wareeriya dana kala duwan iyo aragtiyo kala duwan oo aan dadka soomaaliyeed keliya ku koobnayn ee dana dhinacyo kaleeta ka yimaado waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeed inay walaalahooda iyo saaxiibbadooda waxay tarayaanna ay yaqaanaan waxa iyaga ay kala mudan yihiin oo istarayaanna ay u caddahay waxaan runtii jeclahay inaan baaq kaleeto u diro dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan filashada ballaaran ee galmudug laga filayo galmudug waxa laga filaayo ninkii galmudug yaqaan wuu yaqaanaa waa dad wax walba kara wixii hore ay sameeyeenna wax fiicanna waa karaan hadda waana ka sugaynaa insha allah aad baan ugu kalsoonahay kartida iyo dadaalka markii hadda shirka la qabanaya waxaa la lahaa war dhowr maalmood ma ku qaban karaan galmudug waxay dhowr maalmood oo ku badan tahay geelna ku filan waana muuqataa maanta ka badan oo wanaagsan inay qabtaan aad baa u madaxweyne siciid cabdulaahi dani madaxweynaha
dowladda Puntland waad ku mahadsan tahay khudbadaada iyo sida aad u xustay waxyaabo badan oo muhiim u ah shirka iyo gaar ahaan sida aad u xustay horumarka galmudug ay ku talaabsatay muddada gaaban iyo kabtan dhablaha maaragtay aad ku dhex tuurtayba waxaan jeclahay markaynan soo dhoweeyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waa mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen صعبka la yareeyo markii la qudbaynayo yuusan hadalka naga dhumin bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amuri dunya wadiin sala allahu calayhi wasalam madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi tani madaxweynaha jubbaland axmed islaam madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi bare madaxweyne ku-xigeenka galmudug guddoonka baarlamaanka federaalka labadiisa aqal wafuuddii kala duwanayd ee madaxweynayaasha la socotay madaxdii hore iyo wasiiradii hore iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenadii hore oo inta joogo ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore axmed cabdisalaan iyo wasiiradii hore oo wasiirka arrimaha dibadda oo hadda noo xiriirinhayo shirka iyo wasiirro kale oo hore siyaasiyiinta ururada bulshada iyo cid kasta oo shirkan ka soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii furitaanka shirka iyo ujeeddada shirka madaxweynihii martida loo ahaabaa noo sheegay marka ugu horraysa waxaan rabaa inaan halkan mahadcelin iyo bogaadin aan uga diro dowladda galmudug iyo shacabka reer galmudug sida quruxda badan oo soo dhowaynta leh oo soomaalinimada leh oo dadaalka badan ku jiro oo ehelnimada leh nagula soo dhoweeyey aan uga mahad celiyo aad iyo aad baa loo dadaalay aadaan ugu mahadsantihiin waxaan bogaadinayaa shaqada fiican maamulkan cusub oo curdunka ah uu wado uu u istaagay inuu galmudug uu meel fiican ay gaarto dadkeedana ay gacmaha isqabsadaan ayadana waa bogaadinayaa bogaadinta kadib waxaan isugu nimid shir muddo dheer aan oo muhiimadda uu leeyahay shirkan wuxuu muhiim u yahay waa shir wada tashi ah oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ku tashanayaan waa shir ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto looga hadlaayo maslaxadeeda horumarkeeda isdhexgalkeeda siyaasaddeeda amnigeeda iyo dhaqaalaheeda waa shir loogu talagalay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isku warsadaan maanta meesha ay soomaaliya maraysa iska warsadaan danahooda iyo shaqadooda iyo siyaasadahooda iyo mas-uuliyadda saaran ay ka sheekaystaan arrimaha amniga laga hadlo siyaasadda laga hadlo dhaqaalaha laga hadlo arrimaha bulshada laga hadlo doorashada laga hadlo sidii loo wadaagi lahaa marxaladda maanta taallo oo kala guurka ah sidii looga gudbi lahaa in laga wada hadlo waa wax mustaqbalkii ummadda soomaaliyeed oo dhan ku xidhan
waa wax dowladda federaalka ah aan xubnaha ka nahay oo dowladdaannada ah dan u ah ayna ku faraxsan tahay ay og tahay waxa aan ka shaqaynaynana ay tahay wixii nidaamka federaalka uu noo oggolaa oo ahayd in la sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay samaystaan wadatashi iyo wada shaqayn iyo isdhexgal iyadoo mid guud ay jirto haddana sida uu madaxweyne saciid u sheegay waxaa jiro si gaar ah iyo xaduudo iyo derisyo iyo maxay ahaydee si la leeyahay annaga dowlad ahaan dowlad koonfur galbeed waxaan deris leenahay deris weyn baan leenahay xaduud dheer wuxuu nagala dhexeeyaa dowladda jubbaland mid kaleoo ka sii dheer asagana saasoo kale ah hirshabeelle mid kale gobolka banaadir intaba waxaan rabnaa in wada shaqayn joogto ah iyo xiriir dhab ah aan samaysanno iyo isdhexgal bulshadaas ah oo ku salaysan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimahan caqabadaha ku noqday dadka soomaaliyeed dhibaatada saamaysay oo shabaabka ah oo loo heli lahaa amni ay dowladahaas kulligood ay ku wada naaloodaan oo lagu wada shaqeeyo ganacsi iyo isdhexgal fiicanna loo heli lahaa bilow fiicanaan ka samaynay 6 bilood ka hor waxaa ilaahay noo suurtogeliyey inaan annaga iyo dowladda hirshabeelle aan shirkaas iskaashiga ah aan qabanno guulna uu ku dhammaaday oon iska kaashanayna arrimaha amniga iyo deris wanaagga iyo ganacsiga si fiican buuna noogu soo dhammaaday inta kalena waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho in iskaashigaas aan samayno markii aan intaas ka soo gudbo runtii maanta marxaladda ay soomaaliya marayso waxaa weeye nin kasta oo soomaali ah soomaalida waxay aad ugu faraxsan tahay oo heshiis ku tahay oo hanaqaadkii dowladnimada ku dhiirigeliyey in wakhtiga doorashada markii la gaadho uu wakhtigii doorashadii ay dhacday nin kasta oo soomaali ah wuxuu raba ha ahaado xilkuu raba ha raadiyo wuxuu isku qancinayaa nin walbaba wuxuu leeyahay wakhtigaaba iska gaaban 4 sana dhammaanaysa waa sugaa marka nin kastoo soomaali ah maanta wuxuu diyaar u yahay 4 sana markay dhammaato inuu u diyaargaroobo ninkuu beddeli lahaa iyo ninkii soo noqon lahaaba waa wax standar ahoo soomaalida dhan ay heshiis ku tahay laguna wada faraxsan yahay runtii dowladda maanta joogto marxaladihii dowladda qori isku dhiibka ahaa shaqo aad u fiican iyo horumar la taaban karo oo dalka iyo dadka soomaaliyeedba anfacayo yay ka shaqaysay waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho in haddana aan ka wada shaqayno sidii ay ku dhici lahayd dadka soomaaliyeed cabsida ku jirto iyo baqdintan mar walbaba iska taagan oo u taagan markii marxaladdan la soo gaaro kala guurka ah nin kastoo soomaali ah iyadoo aanan weli aan la gaadhin yaa waxaa jira dareen baqdin ah waxa yeelayana waxaa weeye dhibaatadii tirada badnayd oo la soo maray marka nin walbaba wuxuu leeyahay haddii aysan saas dhicin dhibaatadii baa lagu soo noqonaya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaysan wixii afka uu bartay oo la dhihi jiray god baa lagu dhacayaa inaysan jirin godna horey looguma dhicin haddana laguma dhici doono insha allaahu doorashaa dhici doonto sidii caadada ahayd bay u dhici doontaa doorasho dadka soomaaliyeed oo dhan ay heshiis ku yihiin oo sida ay madaxda dowladda sheegtay golaha wasiirrada ay ku baaqeen madaxweynahana uu soo dhoweeyey oo uu ku taageeray weeye doorashada aan rabno oo dhici doonta insha allahu hadduu ilaaha yidhaaho doorasho dadka soomaaliya oo dhanna ay heshiis ku yihiin yaan rajaynaynaa waxaan kaloo rabnaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in aan laysku xirnaado oo la wada shaqeeyo oo la abuuro jawi nabadeed oo iskaashi iyo wada shaqayn isla markaasna
sidaasoo kale dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ahna ay saasoo kale wada shaqayn iyo isku xirnaan iyo midnimo tan hadda jirta ka sii fiican ay sii jirto yay ka mid tahay shirkan aan isugu imaannay insha allah waxaana rajaynayaa shirka inuu intaan ka sii ballaaran doono dadka soomaaliyeedna waxaan ugu bishaaraynayaa rabitaankooda iyo shacabka aan mas-uulka ka nahay waxa ay ka fikirayaan iyo sida ay wax u rabaan inaan ka shaqayn doonno in aan maxay ahaydey wax soomaali ay isku og tahay oo ay ku faraxsan tahay oo aanan walaac iyo baqdin ku jirin inuu shirkan uu ku soo dhammaan doono hadduu ilaahay yidhaaho mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa wafuuddii kala duwanayd iyo madaxweyneyaalkii shirkan nagala soo qayb galay iyo dowladdii galmudug aad iyo aad u mahadsantihiin wixii kaftan ahaa oo aan aadka u jeclaa waxaa sheegay saciid aniga naftarkeyga waxaan aad ugu faraxsanahay cabdi qaybdiid uu hobyo iyo isu maraayo gaalkacyo uu halkaas ka shaqaynayo oo uu federaalka uu aad ugu faraxsan yahay oo meeshii laga rabay federaalkii uu gaaray waxaa la yidhaahaa markii soomaaliya xornimada ay qaadanaysay ka hor intaan xornimada la qaadanin annaga waxaan ahayn dadkii u dacwoonayay federaal soomaali ma gaarin meeshaas saciid iyo markaas dadka noogu ilbaxsan bay ahaayeen federaal maysan rabin laakiin 10 sano ka hor 60kii yaa odayaashii siyaasiyiintaannadii iyo waalidiintaannadii waxay u dacwoonayeen oy lahaayeen si soomaaliya dowladnimo rasmi ah looga helo ha la daadejiyo dowladnimada sistamkan federaalka aan qaadanno si aanan la isu dulminin oo cuqdadan aynu u dhalanin waxaan qabaa haddii maalintii ayada ahayd talada la yeeli lahaa shakigan iyo baqdintan iyo waxaan shalay la qaaday iyo magaaladan la isla joogo xal fiican baa yaa imaan lahaa haddana waxaa muuqato in la dabaqay u baahan tahay laakiin in federaalkii dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku faraxsan yihiin in sistem federaal aan qaadanno maamulka iyo dowladnimada hoos loo daadejiyo talada ay tala hoos ka soo bilaabatay ay noqoto ilaa iyo meesha ugu korraysa ay gaarto arrinaan aad ugu faraxsanahay weeye waana la dhammaystiri doonaa hadduu ilaahay yidhaaha insha allahu oo dadka soomaalida markii laga reebo in la yidhaaho federaalaan nahay waxay u baahan tahay federaalisimka naftirkiisa barasho kale dowladihii dadkan waxaa lagu soo koray centralismka ahaa marka ayada naftirkeedana way qaangaari doontaa waa la baran doonaa haddii la aaminay aad iyo aadaa u mahadsantihiin waxaan idiin rajaynayaa guul dadka reer galmudug shirkaanna waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo wax dadka soomaaliyeed ka farxad geliyo waana waxaan u nimid asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane lafta gareen cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waa kaaga mahad celinayaa khudbadaada qiimaha badan runtii maaragtay federaalismka waxaan u malaynayaa in dad badanoo walaac ka qabaa waxay u muujiyaan in dalka iyo midnimadu ay dhaawac ku noqonayso burburinayso ama khafiifinayso laakiin in badan way fahamsan tahay in uu yahay dal burburay iyo dawlad kala tagtay iyo shacab maaragtay shaki kala qaba in qaybinta loo dhiso la isu soo celiyo oo isu soo celin ay tahay aanay ahayn kala fogeyn marka waxaan jecelahay markan shirkan sida aad ka warqabtaanba maanta indhaha dadka Soomaalidu wuxuu hayaa shirkan Dhuusamareeb iyo wax looga hadlayo iyo waxa ka soo bixi doona madaxweynayaasha dhan culayska saaran focuskaana saaran laakiin madaxweyne si gooni loo fiirinayo waa madaxweynaha Jubbaland waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaan in uu halkan ka jeediyo khudbadiisa ku soo dhaweeyo madaxweyne
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدحوينها مرتدى اللو يهي قلمدو أحمد غورغور صاحب بضا إذا كلا وذا سعنا مرتدى وآي ساقا مدحوينياشا كونفور قلبين بنتلان يهير شبالة madaxweyne ku-xigeenka galmudug guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa dhammaan reer galmudug baarlamaan iyo wasiirre iyo shacabba iyo inta kale ee martida ah ee la socotay madaxweynayaasha madaxda xildhibaanada ka socda labada aqal ee dowladda federaalka ah bulshada rayidka ah iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo madaxweyne axmed qoorqoor iyo maamulkiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo reer galmudug sida aad iyo aad xushmadda iyo ixtiraamka u lahayd ee u soo dhoweeyeen wufuuddii u timid iyo nooca qabanqaabada shirkan oo aan isleeyahay iyadoo lalahaa war galmudug sidoo ay saaxiibbaday sheegayeen wakhtiga aannu qabannay oo layidhi 7dii bisha 8 aan shirka qabanno madaxweynuhuna uu safar markaa ku jiray ma qabsoomi karaan iyo ma iman karaan ay u qaateen inay wakhtigaas qaabtaan iyo qof kastoo imanayo waftiyada ka mid ahay waxa uu filayay waxaan ahayn ee uu la soo kulmay waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo aan idhaahdana galmudug maanta waxay ku taagan tahay waddo fiican dadnimo hore ku jirtay bay la soo wada baxeen maantana waxay ka muuqataa dhuusamareeb iyo reer galmudug soo dhoweynta marka laga soo taga haddana sida ay u diyaarsan yihiin iyo dowladnimada ay raadinayaan iyo qabanqaabada ay isugu wada yimaadeen ma koobi karo laakiin mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihi intaa marka laga soo tago shirkaani muhiimadda uu lahaa waxaa ka hadlay saaxiibka martida loo yahay iyadoo aan filayo in mar walba yuusuf garaadna uu halkiisa dhaan wada ku darsanayey inuu yahay shir maanta qof waliba uu soo fiirinayo waxa laga filayaana uu yahay wax ay keentay xaaladda lagu jiraay inay sababtay filitaanka shirkan wax laga filayaay mid wakhtiga ku xigan inuu yahay taariikhda ay soomaaliya soo martay isma weydiinayno marxaladahay soo martay ee kala duwanaa laakiin waxaa hadda inoogu muhiimsan burburkii kadib soomaaliya inay qaaday tallaabooyin horey loo qaadayo oo dowladnimada lagu soo uruurinayay laga soo bilaabo carta bagaasi doorashadii 2012 muqdisho 2016 muqdisho marka lagu daro intii jabuuti isku darkii faraha badnaa soomaalidu ididiilo iyo amaal muujinaysay sida ay soomaalidu ugu baahan tahay bal inay ka guurto dhibaatadii iyo caqabadihii la filayey oo nooca dowladnimo ay u guuraani inay ahayd midda marxaladaha keenaysay oo damac siyaasadeed ku jiro uu ka fakaraya alleelehe hebel baa qaatay hadduu qaatay u daa afartan sanaan isdiyaarinayaa waxaa lagu gaadhay inta badan ee ku dhacaysana inay tahay wadatashi isla oggolaansho iyo dadku inay markaa waxay isla ogyihiin ay ku meel marayaan ay gaadhaan waxaa hubaal ah oo meel looga wareega aan lahayn guddiga doorashooyinka ee maanta jira markii la dhisayey iyo markii ka horraysayba waxaa laga hadlayay hal qof iyo hal cod in la gaadho waa hamiga qofka soomaaliyeed oo qof waliba ku fakarayo doorasho noocaasa inay dhacdo haddana mar walba waxaa waaqaca runta sheegayey wadciga lagu jiro iyo xaaladda waddankeennu uu ku jiro oo u baahan inta taa la gaadhayo wax badanoo hore inay qabsoomaan inay mar walba caqabadaha ahayd looma fadhiisanayo markaa oo lama odhanayo waan gaadhi weynay sidan aan yeella haddana waxay noqonaysay lafba sidii lagu waxayn karaa loo xagtaa sidii lagu badbaadin karayo ama see xeegana loo xagtaa ilkana ku nabadgalaano mar walba haddana isbeddelkii
iyo damcii iyo amaashii inay socoto inay tahay midda dowladnimada Soomaaliya aasaaska u lahayd 2016 markii laga hadlayay waxaa aad culayska loo saarayay inay dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod oo ogeydeen National Leaders Forumkii iyo tallaabooyinka uu qaadayo wixii la sameeyay haddana way socon kari weyday oo waqtiga lagu jiray waddanka iyo xaaladii adkeyd waxay keentay inay taasi socon weyday waxaan rajaynayaa markaa ama maanta shirkan muhiimadda iyo u sii keentay waxay ahayd arrinta doorashooyinka soo socda ee 2021-2020 dhacaya oo dadku ay in badan soo hadal qaadeen oo qof waliba uu markaa ta'wiilka uu doono uu siinayay taas macnaheedu waxay ku soo ururaysaa shirkan asal uu yahay in la wada tashado dowlad goboleedyadu waa qaab dhismeed ka tirsan systemka federaalka waddanka iyo iyaga gaarkooba ka tashada waxaa kaloo wehelisa dowladda federaalka mas-uuliyiintooda iyo dowlad goboleedyada laftirkooda talada ka dhaxaysa ee u baahan mararka qaarkood qaraaraadka siyaasiga ee la gaadhayay inay noqdaan mid laga wada tashado la isu yimaado la isla qaato meesha ay la isleeyahay way gaari kartaa dadka Soomaaliyeed marka waayeel waxaa la yidhi hortiisa caano loogu barxaa haddii reerku ay caano yareeyaan ay gaari waayaan oo la yidhaahdo ha loogu daro biyaha lagu daro qofka waayeelkii uu garanaya caanahan in wax lagu daray laakiin qofka ilmaha yari inay cad yihiin buu arkaa waxaa laga yaabaa inuunan aad u sii garanin marka qofka waayeelka isagoo arka yaa lagu darayaa si uu ogaado in baraxii ku jiro dadku markaa shayga muhiimkii waxay tahay waxa ay qaadayaan iyo tallaabaday qaadayaan haddii barax lagu daray iyo haddii sidooda lagu bixinayaba inay noqoto mid u wada muuqata oy wada arkaan oo markaas aan keeni karaynin tuun iyo istuun iyo midna aan abuuri karayn waxaan rajaynayaa shirkan muhiimaddiisu inay tahay inay ka soo baxaan wax rasmiya oo doorashooyinka iyo siyaasadda iyo wax walba iyo wax dowlad goboleedyada ka dhaxeeya intaba saamayn ku yeelan doona ma laha iyaga dowlad goboleedyadu go'aanka gaadhista arrimo badan oo waddanka u yaalla laakiin waxay leeyihiin la tashi iyo inay talada iyaga iyo dowladda federaalka mas-uuliyiintooda ay ka dhaxayso goonina ayna u ahayn ayna doonaynin iyagu shaqo ayna iyagu lahayn inay qabtaane ay doonayaan inta iyagu xaqa u leeyihiin inay ku darsadaan taladooda taasina ay waddanka oo dhan horumar iyo guul gaadhsiin karayso waxaa u baahan maanta culaysyadana saaran waddanku inuu horey uga gudbo marxaladaha kolba lagu jiro waxaan u baahannahay waxyaalo badan baa inoo yaallay oo bilowgii dowladdan haddana laga hadlayey maantana taalla dastuurku uu ka mid yahay dhammaystirkiisa ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada in la fuliyo heshiisyadii horey loo soo gaadhay London Conference Muqdisho Baydhaba iyo qorshihii amniga qaranka waxaasoo dhani marka ay timaado inuu dhici waayo kulanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama dowlad goboleedyada laftirkoodu inay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan waxa markaa hor yaalla waxaa lumaya oo baadayo kala fogaanaya wixii la rabay in la qabto ee la rabay inay waqtiyadaas qabsoomaan ama la iska weydiiyo waxaa nasiib darro noqonaysa heshiisyo badan oo horey loo soo gaadhay fulintooda inaan la isweydiinin oo aan la odhanin war waxa halkaasay marayeen xaggey inoo marayeen maxaa ka qabsoomay maxay sababtu ay tahay waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay ka wada shaqayso kulligeed waddankaani maanta midnimada iyo gacanta la isqabsaday isku duubnidu galmudug waa tusaale idinku filan galmudug yaa tusaale idinku filan madaxweynaha senatarada iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo kuwa maamulkiisaba intay gacmaha isqabsadeen wareegga ay sameeyeen iyo maanta halkay shalay ka bilaabeen iyo maanta isku duubnida maanta ku shalay wax sheeganaya iyo mid kaleba maanta reer galmudug halkay isla gaadheen aan kulligeen gacmaha isqabsanno isku duubnaanno ninka dowladda federaalkaa joogay maanta wuxuu mudan yahay in lagu ixtiraamo shaqada uu hayo isaguna uu garto cidda talada la leh iyo waxa ka dhaxeeya ka maanta bannoonka ka joogaana uu garto maanta ninkaa mas-uuliyadda federaalka joogay xilka saaran iyo culayska uu ogaado isaguna berri hadduu kursigaas tago
si ay ugu sahlanaato inuu shaqadaa lala qabto inuu isaguna isku dayo qofka walaalkii ee markaa shaqada ku jira inuu wax la qabto oo uu la saxo oo uu gacanta la isku duubto ma aha ta federaalka keliya ibanta isteydyada oo ay ahayd maamulada ilaa heer council iyo saddexda leebal ee dowladnimo in loo dhowaado oo mid heer councilkii iyo degmooyinkii iyo tii dhexe ee stateka iyo dowladdii dhexe ee sare ee waddankuu lahaa inay intooda noqdaan wax isku xidhan oo ay tahay waxa inugu keenay federaalkan iyo culayskan inaan hadda dowladnimadeenni dib u soo aduudno dagaalkii sukeeye iyo burburkii iyo kala tegistii balin intii isqaadan karta iyo sida dastuurka u soo qorayba sidaa loo socdo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa reer galmudug mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynayaa saaxiibbaday inuuna shirkaan noqonin kii ugu dambeeyey ee shirar badan aan yeelanno la isku xidhnaado la wada shaqeeyo waxa ka soo baxayana ay noqoto shirkani gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan inaan wax cad oo aan iska weydiinno annaga iyo dowladda federaalka iyo cidday naga dhexaysaba talada naga dhexayn karta la isweydiiyo oo la isla qaato waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa dadaal kasta oo dadka isu wadi karaya oo amniga looga wada shaqayn karayo oo qof kasta oo siyaasiyi uu maanta aad uga fakeraya ama ha noqdeen madaxda xukuumadda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqdeen ama madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kale iyo qof kastoo caaqiloo siyaasiya ha noqdeene qof waliba inuu ka fekero oo ka shaqeeyo isku haynta waddankan xasiloonidiisa sida aan intii ta'wiil aan jirin uu u dhaco dhibaata waddankan uga dhici lahayd qof waliba inta la gudboon inuu ka shaqeeyo sida ugu habboon ee loo gaari karayo waxaan rajaynayaa on ilaahayna ka baryayaa shirkaani inuu dhali doono kuwo kale oo ku xiga oo ka fiican oo iyaguna kulli ay isla soo wada saaraan kuwa federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduba wax maanta dadku ay ku qancayaan oo u muuqata oo aragti siyaasadeed keenaysa oo walaaca iyo tuhumka dadka ku jiraay ay uga baxaan reer galmudug guul baan idiin rajaynayaa gacmahaad saysataan wada waxaan aad uga warqabaa reer galmudug waa deeqsiyo horta hadda sooriyada iyo geela la uruurinayo iyo xoolaha la keenayo waxaan u malay inaan diyaaradaha ku qaadan doono oo ay ka badan doonto intaan joogno waxaan isticmaali lahayn bal wixii lagu qaadi lahaana aan ka sii fakarro oo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantahay mudane madaxweyne axmed maxamed islaan si qurux badan ayaad uga dabaalatay waxaan jecelahay inaan xuso oonan markii hore joogitaankooda xusin bogaadiyena xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore galmudug jenaraal cabdi qaybdiid in aan xuso oo aan soo dhoweeyey waad mahadsantihiin waxaan jecelahay markan khudbadda madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane maxamed cabdi waare hirshabelle oo aniga iyo meel ii gaara maadaama farta hadda dadku waxay ugu ammaanaan wax qoridda waxyaabahaas meeshan ku farbartay waa buulo burtay aniga marka madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane maxamed cabdi waare ku soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة aanu nahay dhammaan madaxweynayaasha kale baarlamaanka iyo labada gole ee labada heer ee federaalka marti sharafta kale bulshada rayidka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof walba waxaan ku salaamay magaca iyo mansabka iyo brotokoolka oo halkan ku fadhiyo runtii waxaan jeclaan lahaa inaan si niyada oo kalsamiya u bogaadiyo madaxda iyo shacabka galmudug oo ugu horeeya madaxweyne qoorqoor ilaa iyo caawa waa laga sheekayn karaa wanaagga aan halkan ku aragnay laakiin waxaa tusaale ay noogu filan tahay oo darsi noogu filan tahay midnimada iyo wanaagga iyo isla shaqaynta
iyo isindhabuuxintu waxay dhali karaan waddan in horumar la gaarsiiyo waxaa ka horeeya hal shay waxaa ka horeeya horta waddanka in loo laxa jecloodo waxaa muuqata oo aan markhaati ka nahay reer galmudug inay u laxa jecloodeen waddankooda oo ay caqli iyo cilmi iyo effort waxay hayeen ay halkaan isugu keeneen hoggaaminta madaxweyne qoorqoor iyo personalitiskiisa iyanu intaasoo dada iyo intaasoo horumara isku haayeen bogaadin gaara ayaan madaxweyne kaaga bogaadinaya waxaa kaloon rabaa inaan soo dhoweeyo saaxiibkay madaxweynaha dowladda jubbaland axmed madoobe oo runtii sidii doorashadiisu ay u dhacday aanan golayaashaan maba dhicinba laakiin aan ka soo qaybgelin asagana waxaan ku leenahay ka soo qaybgal wanaagsan taladaada iyo odaynimadaada waa u baahannahay adigana soo dhowow run ahaantii war badan ma la ii reebin runtii waxaan rabaa inaan 3 qodob keliya aan dul istaago shirka ujeeddadiisa iyo waxa laga filanaayo iyo meesha aan u soconno iyo waxa aan rajaynayno dhammaan waxaa cabbiray madaxweynayaashii iga horreeyey qodobka ugu horreeya oo aan rabo inaan dul istaago waa qodobka dastuurka dhammaanteen waxaa halkaan aan isugu nimid oo isugu keenay waa dastuur dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaaddii waddankaanu galay kala aanbixii kala irdhowgii isku soo jiijiididdiisii qof walba aniga waxaan laga tiro waxaan hala geliyo ilaa dhowr iyo 10 draft ayuu maray wixii laga badi waayay ayaa halkaas lagu qoray dadka u haysta inuu yahay dukumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan waxay la mid tahay ayadoo famil isla dhashay kulligood intay waalidkooda ay u yimaadaan ay yidhaahdaan aabbow hooyow walaalkay iga weyn iyo walaalkay iga weyn shaki baan ka qabaa intaad nooshahay wax noo kala qor waxaas aan ku dhaqanno markaad dhimato dastuurku muhiimaddaasuu leeyahay waxaa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxaa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha waa turjumaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxaa waaye ilaa laga ansixiyo unbuu draft yahay ma ahee soomaaliyu waxay isdhihi lahayd waystiri jabuutiyaa laga soo bilaabay sida madaxweynayaashu u sheegeen ilaa haddoo muxuu ahaay senator cabdi qaydiid iyo tiimkooda waxay soomaali isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinayaa wax caqliya oo naga maqan oo bannaanka naga jira ma jiraan waxaa la yidhahdaa wuu iska hor imaanaa dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xihan tahay in il naxariisle lagu fiiriyo in niyad waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhimanna haddaa hawsheedu socotahay aan iimaansanno gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhaxlayno waxaa ka mid ah sida loo sheegay sistamkan federaalka oo aan haysanno mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareerto halka aan ku taagsannaho waa federaalka waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay dastuurkaas inaan iimaansanno oon wanaagsanno ayay taladeennu ku jirtaa
sida dad badan oo yaqaan ay og yihiin aniga samafalkan ka soo shaqayn jiray dad baan wax u qaybin jirnay dadka marka safka la geliyo haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba waqtigiisa sugto oo qorraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan hawshu fudayday ku soconaysaa laakiin haddii safka mid gooyo oo wuxuuna xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo waxa dhan waa isku dhex yaacayaan waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaha waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansanno haddaan dastuurka u hoggaansanno qorrax iyo dabayl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno waa waddan dagaal ka soo kabanayo laakiin waxaan hubaal ku qabaa oon ku kalsoonahay inaanaan isnacayn wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaallaan arrinka labaad doorashooyinka madaxweynayaashu waa ka hadleen adduunyada sideedaba laba doorasho ka jirto waddan isku toosan oo wanaagsan oo taariikhdiisa la og yahay oo dadka musharaxiinta ah tabeelayaashooda iyo durbaanadooda ay soo qaadanayaan oo cid u baahan ay jirin oo dawladda kaliya la leeyahay xoogaa dawladnimada inaadan mataqaanaa aadan dadka tartamayaasha ku xusul gelin kaliya ee laga fiiriyo intaas doorasho noocaas waa jirtaa doorashada kale oo wadamada burburay iyo wadamada dhibaatooyinku ay ka jiraan ka dhaca hal shay saldhig u ah waxa saldhig u ah in lagu heshiiyo labaatankii sano la soo dhaafay wadamada nooceena oo ay doorashooyinku ka dhaceen oo ay ka mid tahay Afghanistan oo ay ka mid tahay Liberia oo ay ka mid tahay Sierra Leone oo ay ka mid tahay Congo oo ay ka mid tahay East Timor waxay doorashadoodu ku dhacday heshiiskaas oo ah inay 4 kooxood ka heshiiso marka la leeyahay macnaheedu maaha in hal qol la isugu keeno laakiin inay talada heshiis ka yihiin koow cidda taladu gacanta ugu jirto sababtoo ah waxay hayaan dhaqaalihii imkaaniyaadkii awooddii amnigii waa loo baahan yahay ha ahaadaan heer gobol ama ha ahaadaan heer ka koreeya dadka xukunka hawada uga jirto oo raba inay kuraastaas ayaguna markooda soo fuulaan waxba kama duwana marka rifriigu labada kooxood kabtanadooda intuu isu keeno instructionska kala siiyo hadduu gooni qolo ula hadlo qolo kalena gooni ula hadlo dadkii shacabkii fiirsanayay way waswaasayaan waa in dadka xukunka raba iyo dadka xukunka haysta ay tafaahum leeyihiin waxa kaloo laga maarmaana shicibkuna inuu raali ka yahay oo wakaaladooda ha ahaadaan odayaasha dhaqanka ha ahaadaan culummada ha ahaadaan haweenka ha ahaadaan muxuu ahay mutaqafiinta iyo dadka mufakiriinta oo fikira waa inay waxa socda ayaguna raali ka yihiin ugu dambeyn beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waaye maxaa waaye sababtu annagu Soomaaliya haddaan nahay waxaan xubin ka nahay ururo caalamiya United Nations ka kamida ururka carabta kamida kan islaamka kamida igada kamida dhammaan ururadaas waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno naqabanaya sidaas daraadeed ma rabno inaan sameeyno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan falaaganahay oo aan taladeena gooni aan u dhiganay doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa muhiim sababtoo ah waa safety valve waa meeshii systemka laga neefinayay dhammaan madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo wixii intaas ka soo hara waa farsamo marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn tusaale ahaan waa xubin farsamo
oo loo sameeyey inay farsamada doorashooyinka ay hayaan haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yiraahdo muxuu ahay waxaan kuu dhisayaa 2 usbuuc $10,000 kugu baxaysa اختيارك إن أقبشوا إن ديد أدا إسكاله فوندي وحق كوجو ملأ إنه كالا مرمو عريشان كودي سات نجحان كودي سات شقتها أسوق ملأ قد جالس هوشي سواق بصدي يلا نبين حليم يري نبكه هلا قد دايو ثلاثة أنا قاعد تشنين مالك تلا نجا صوب بحذو haddana ayagaan ku celinaynaa ama kii bedelaan ku celinaynaa sideeda horta meel cidlaa in la iska qabsado oo la iska xigxigto ama la iska shakiyo waa gardarro qodobka ee ugu dambeeyo aan raba inaan ka hadlo waa gobolka Banaadir waa caasimadii wadanka waa magaalo aan wada leenahay waa dawladnimadeennii waa saldhigeennii waa halka quruxdeena iyo qaab darradeena labaduba ay ka muuqdaan in dadka xamarne arintaas waswaas badan nin aan saaxiibana hadda kor wuxuu yiri niyahow nin aad shirkad tihiin hadduu xisaabta ka leexleexdo warcaaw xisaabtii maxaa soo xarooday war bari nooga dhig hadduu xisaabta ka leexleexdo ninkaas qaablaawo waaye kala baxa in matalaada xamar iyo maqaamka xamar saacadda ugu dambaysa sidii excuse loogu sameeynayo biraa laga hadli saadan baa laga hadli kana laga hadli last minute ka la iskugu yimaado waa nasiib darro magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo shabaab marka la isku daro waxa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 bilyan sanadkii waxa u dheer amni darro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dawladnimada iyo caasimadnimada nafteeda ku soo gaara matalaadu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meesha uu doonaba ha joogo Soomaali dhammaanteen waxaa noo yaal inaan ka wada tashanno maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashanno ummad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horaan u soo aragnay gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi markii la isku daraayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dawladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen waxa dhanba in ayaga lagu wareejiyay ahayd waxba laga mitixgelin maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla jooga bas dawladdii markay soo burburtay salaamu calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay dawladda la dhisay waa ka warqabtiin wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro horaa looga socday nimankaas inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka ma goosanayso laakiin waxa ka suurtagal idii sheegi waxa ka suurtagal inay dhahaan Soomaaliyay cashuur noqotaya iyo amri darro noqotaya iyo culays noqotaya 60 sanaan caasimadnimada soo haynay culayska laga qaado meel kale hal la geeyo waxa ka suurtagal inay dawladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dawladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiina oo dhibaataysan dawladu kor fuushay inuu noqdaa iya ka suurtagal waxa ka suurtagal in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo arinta Banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca walada ciyaarta maxay dhan injury time in mar walba injury time ka la iska warsado
arrintaas waxa laga bedelo caasimaddaas waa wada leenahay aan wanaajisanno si aan raalli aan isaga nahanee maqaam aan ugu raadinno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsan tahay madaxweyne waad mahadsan tahay madaxweynaha hirshabeelle madaxweyne maxamed cabdi waare waxaan jeclahay intaanan gunaanadka u gelin oo madaxweyne qorqor uu noo soo gunaanay doono goordhow in aan in yaroo khulaaso ahaan ka taabto shakiga iyo waxyaabaha badinta dadka qaar ay ka qabeen ama shirkan ku gadaannaa marka khudbadaha hadda la fiiriyo madaxweynayaasha kelmadahan ka soo qabtay waxa weeye madaxweyne qorqor uu horreeyey wuxuu yidhi talada keligan ma lihin waxaan rabaa inaan xuso in madaxweyne siciid deni uu yidhi shirkani waa shaqo loo qabanayo dowladda federaalka waxaan rabaa inaan xuso madaxweyne axmed maxamed islaan shirkani wuxuu asal u yahay in la wada tashado dowlad goboleedyaduna go'aan ka gaaris ma laha ee talo ay ka bixinayaan inta ay iyagu xaq u leeyihiin madaxweyne waare wuxuu sheegay in dastuurka loo wada hoggaansanaado waxaan ugu daba mariyey madaxweyne lafta gareen sababtoo ah dad badanoo hawada nagala socda hadalkaas way danaynayaan waxaan rajaynayaa uu yidhi shirka in ay ka soo baxaan wax ay soomaali ku faraxdo marka waxaan rajaynayaa in commitmentigaas la bixiyey oo hawada lagu bixiyey laga dhabayn doono madaxweyne qorqoor madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaan gunaanadka siinayaa khudbadda bismi illaah madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka saaxiibadaya dhammaan golayaasha marti sharafta magac kastooo lagu joogo mar labaad iyo mar walba waa idiin mahad celinayaa sida looga soo qayb galay shirkan furitaankiisa uu muhimka u ahaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay waxaan u mahad celinaynaa dhammaan inta aqbashay inta gacan ka geysatay inta u diyaar ah inuu guulaysto waa la soo wada shaqeeyey inta hadda aan ku leenahay ayaana talada ururi doonnaa qaybaha kale oo u muhiimkaa u maqanna waxaan ku kalsoonnahay inay wakhtigooda kaalintoodii ka qaadan doonaan shirkuna uu guul ku dhammaan doono insha allah waa u mahad celinaynaa dhammaan dhinacyada oo dhan ummadda soomaaliyeed taageeradii iyo isgarabtaaggii guud ahaan ay shirkan iyo kulankan wadatashiga ah gacan nagu siiyeen meel kastoy joogaan waa ugu mahad celinaynaa waxaana ugu baaqaynaa inay sidaas si mid ah oo khayr loo rajaynayo iyo midnimo ay u garab taagnaadaan haddii allah awoodii la ogolaado sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa beesha caalamka taageeradii ay soomaali la garab taagnaayeen waxaan haddana ugu baaqaynaa kana codsanaynaa inay taageeraan wakhtiga lagu jiro oo wakhti runtii taageero badan loo baahan yahay ah isgarab taagaan waan rajaynaynaa iyadoo weliba aan isleenahay taageeradaasina waxay la socotaa wakhtiga iyo sida uu yahay mar labaad iyo mar saddexaad dhinacyada oo dhan baan u mahad celinaynaa ka soo qayb galay shirka waa noo furan yahay fayskan koowaada furitaankana intaas ayuu nagu egyahay waxaa socon doona shaqooyin goonigooniya iyo guddiyo iyo farsamooyin wuxuuna weji labaad yeelan doonaa wakhtiyada soo socda insha allah aad iyo aad u mahadsan tihiin shirkuna waa noo xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madaxweyne waad ku mahadsan tahay waxaan jecelahay in aan idinla socodsiiyey in dhowaan la daari doono hees la yidhi waxa lagu soo dhaweynaya madaxda kadibna waxaa noo xigaysaa inta hoosta socotay in aan baxno iyadoo saxaafadan marka hore fasixi doono madaxda sagotin doono kadibna intaan kale insha allahu tacaala aan ku xigi doono marka ku soo dhawaada heestaas salaam marka hore mugwey gudnaan iyo soo dhawey madaxdii soomaaliyeed galmudug marti kuma tihiin madaxdii soomaaliyeed galmudug marti kuma tihiin dadaan kala maarmiyo mataana qudhaynanahay salaam marka hore mugwey gudnaan iyo soo dhawey madaxdii soomaaliyeed galmudug marti kuma tihiin madaxdii soomaaliyeed marti kuma tihiin galmudug madashan taariikhda wey aan loo kala maqnayn madashan taariikhda wey aan loo kala maqnayn walaalaha maanta yimi wasiirka dadkooda iyo midnimo dhamuq la wadee madashan taariikhda wey aan loo kala maqnayn madashan taariikhda wey aan loo kala maqnayn walaalaha maanta yimi masiirka dadkooda iyo